بسم الله عاقير ما أوجي واحد dood ah oo arrintaa ka jirta ma ogi xadarada in la iclaamiyey oo ku tala gashanahay un baan ogahay laakiin wax dood oo aan ogsoonahay maba jirtoba sheekh cabdulqaadir sheekh maxamed sheekh somow oo ka mid ah culimmada magaalada muqdisho ayaa goordhoweed noo warramayey wuxuu sheegay in muxaadaradaas ay habaabin tahay sidaas daraaddeedna dadka aanay tegin marka dooddaas maxaa kaga jawaabaysaa muxuu cuskaday wuxuu leeyahay shiikha wuxuu aad u taageeraya afkaarta xag jirka marka isagoo afkaartaas taageeraya in uu haddana muxaadaro muqdisho ku qabto waa khalad weyn hadda wadaadku waxaan u malaynayaa war buusan hayninba nin hurdo ka soo kacayba adduunka lama socdo miya afkaarta uu ka hadlahayo hadday tahay middan qoladan qullaadii xajirka ay qabaan dadka keliya la dagaalamay annagaan ahayn ilaa bilowgii ilaa dhammaadkii halis badan u galay naftooda khatar loo geliyey culimmadiinnadii baa lagu laayey sida logsoon yahay marka wuxuu ka hadlaya ma garanin malaha wadaadku wuxuusan la soconin waxa jira iyo mawaaqifta culimmada iyo hadduu nin dee aqoon diineed leeyahay adduunka hadda jirana uu la socdaay waxaan u maleynayaa sidaa inuusan u hadleen laakiin waxaan u fahmay uun wadaadaan wax la socon waxyaabaha uu kugu eedeynaya waxaa ka mid ah in afkaar iyo fatwo aad soo saartay dadkiisii lagu laayay gaar ahaan suufiyada wallaahi walaale ma ogi aniga suufiye fatwatay aan lagu laayay iyo khudbatay aan ma ogi wuxuu u baahan yahay inuu keeno meesha aan aniga ku idhi suufiyada ha la laayo ama dariiqooyinka ha la laayo ama waa gaalo si jumlo iyo duuduuba gaalo diinta ka baxday weye meeshaan ku idhi isagaa looga baahan yahay haddii warkaasi uu ka sugan yahay meesha iyo xilliga aan idhi inuu sheegoo loo baahan aniga waa la yaqaanaa afkaartayda waa la yaqaanaa qanaacaadkayga waa la yaqaanaa dadka waxaan u sheegana waa la yaqaanaa oo wada duuban yahay ummadduna way ka warhaysaa marka wadaadka isagaa looga baahan yahay inuu suga waxa uu sheegayo muxaadaradan muqdisho aad ku qabanaysid maalinta beritaa yaad u sheegtay yaad kala hadlashay dowladdu way ogtahay walaal qabanqaabadeedana qayb bay ka tahay aniguna nin dalka martiku ama ihi dalku waa dalkaygii meel alla meeshii ila qumanaatana waxban ka jeedin masaajidaan ka jeedin telefishinkaan ka jeedin goobaha khaaskaa baan ka jeedin wixii aan maslaxa u arko garashadaydu tidhaahdo ummadda waa la wadaagaya walaale sidaasaana dhaqanii ahayd dowladduna dee weyba og tahayba waa meesha idaa ka talisa dalkana iyadaa joogta barnaamijkana waxa weeye ilaa hadda wax dareen iyo diido iga soo gaadhay ma jirto marka wixii ummadda aan u faa'iidayn karno waa u faa'iidaynaynaa waana dhaqan baynu u ahayd walaal sheekh maxamed cabdi umal ujeedka meesha aad u tagtay markii hore wuxuu ahaa inaad gargaar gaarsiiso marka hawshaadii markaa gudatay soo inaad soo laabato oo saldhiggaa kusoo laabata ma ahayn intii aad muxaadara halkaa ka jeedin lahayd maadaama ay halkaa culummo joogaan adeer dalku waa dalkaygii waaye haddaan tegeyna kaalmada aan gaadhsiiyey risaaladii kalean xambaarsanaa baan gudanaya balowdaynan ka soo noqdon muxaadaraad ka jeediyey muqdishoan joogaa telefishinka qaranka kulamo goongooniya kulame guud ummaddaydii baan la joogaayo wax u sheegayaa waajibkii saarnaa baan gudanayaa mana aha markii koowaad ma aha aniga dalka soomaalidu degtoo dhan baan maraa dibadahaan u tagaa ummaddu waa dadkaygii waa ummaddaydii dalkuna waa dalkaygii waay marka nin iga xigsan kara ma jiro dhihi karaya maxaa muqdisho keeni maxaase dowladdii iyo madaxdeedii baan qaybaheeda kala gedisan tale iyo nasiixa iyo wixii waajiba iswedaarsanaynaa ummadda inteedii kalaanu xidhiidhaynaa marka hadda wadaad si gooniya isagu u jiran hadduu jiraay hawl isaga u taalla waaye laakiin wax yaalla maaha waddanka ma garat waxyaabaha kale ee sheekh somo uu kugu eedeynaya waxaa ka mid ah in suufiyada aad gaalo ku tilmaantay marka arrintaas maxaa kaga jawaabaysaa ha sugo xaggee baan ku idhi xaggee suufiyada iyo dariiqooyinku waa gaalo aanu muslim ahayn isagaa looga baahanya ninkii wax sheegta albayinatu cala almuddaci buu nebigu uri sal alay wasalam yacni cidda wax sheegtay baa caddaynta laga rabaa wadaadka ku warceliya waxaad tidhaahdaan waxaa lagaa rabaa caddaynta meeshuu ku yidhi xilliguu yidhi ayaa lagaa rabaa ruux wax waa iska sheegan karaa waa iska hadli karaa social media wax waa iska soo dhigi karaa laakiin waxaa looga baahanya wixii inuu caddeeyo ama cod ama qoraal ama inuu keenaa loo baahan yahay mana soo heli karayo meel anigu ku idhi dariiqooyinku dhammaan waa wada gaalo dadka dariiqooyinka raacsan diinta waa ka baxeen sax waa jiraan khaladaadaan ku haysanno loo baahan yahay muxuu ahay in ummadda laga saxo ayagaa dad kaleeto qaladaad waa khaldantii masaa'ilkaasi waa masaa'il u baahan in laga niqaasho laga wada hadlo wax la isfahansiiyo laakiin dariiqooyinku waa gaalo meeshaan ku idhi isagaa laga raba inuu keeno